waxaan leenahay shaqaaluhu waa kuwa shiila maskaxda kala shuba ee ka soo shaandheeya xigmadda waa idin hambaleynayaa kulligiin waa maalintii marqumaalka waa maalintii xalaal quutayaasha waa maalintii xoogsatada adduunka waa maalintii kuwa dhididkooda ku nool waa maalintii kala duwaysay kuwa shaqeeya iyo kuwa shaxaatama waa maalintii shaqaalaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay inay jirtay waqti dalkani uu ahaa dal weyn marka laga fiiriyo shaqaalaha u shaqeeya waxaan aaminsanahay taariikhdaasi inay naga caawin doonto taariikhda cusub oo aan sameynayno haddii Ilaahay yiraahdo waaga marka waxaa jiray shaqaalahaasi maanay ahayn shaqaalo qabiil ku dhisan maanay ahayn shaqaalo dalkooda hagrada maanay ahayn shaqaalo dan gaar ah leh waxay ahaayeen shaqaalo dalkooda iyo dadkooda iyo dawladooda daacado ah waxaan halkan maanta ka maqlaayay iftiin la mid ah kii isaga ahaa oo tusaale u ah inay dawladnimadeena soo laabato waaga isaga ah waxaa jiray in shaqaaluhu ay shaqada u sinaayeen la midayn jiray aqoonta iyo shaqada waxaan rajaynaynaa marka dib u habeynta laga wado wasaaradda wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii Ilaahay yiraahdo in mar dhow sanadkan markuu dhamaado aan soo gaari doono in wasiir damba aanu qof qori doonin ra'iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhamayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhamaystiraan la dhamaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doona dhaqan cusub oo kamid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dawladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ahaato tiyaatarka in suuqa la soo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii Ilaahay yiraahdo waxaa laga yaabaa inay caqabada la kulanto waayo qolooyinkii rabay weligood iyagu inay cid qoraan waxay ku noqonaysaa dhib laakiin waxaan idin sheegayaa in dib u habeynta dalka lagu wado lagu sii wadi doono inta qof walba Soomaaliyeed uu dareemayo in dalka la wada leeyahay dawladda sideedaba waxay leedahay saddex xoog mid waa ciidankeeda midna waa shaqaalaheeda midna waa shacabkeeda shaqaaluhu marka waa laf dhabarta intaba sababtoo ah iyaga la rabaa inay isku xiraan dawladda iyo shacabka iyaga la rabaa inay ciidanka gacan siiyaan iyaga ah safiiradii dawladda maadaama kumanaan qof ay u shaqeyso dawladda aan adigu faraxsanahay halkan in laga qiray in cid walba ay hesho xuquuqdeeda waxaan rajaynayaa nidaamkii aan ku ballaynay 2 sano ka hor oo ahaa in qof walba oo dawladda u shaqeeyo uu xuquuqdiisa helo qof walba oo xuquuqdiisa helana uu noqdo qof dawladda u shaqeeyo marka waa idin hambaleynayaa waxaan rajaynayaa in la labi jibaari doono shaqada waxaan u hambaleynayaa dhammaan shaqaalaha rayidka meel walba ay dalka ka joogaan waxaan u hambaleynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo difaac ku jira gaar ahaan kuwii saakay xoogga ku maqriinayay argagixisada ee la wareegay bariga
waxaan u hambaleynayaa ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga magaalada Muqdisho. waxaan u hambaleynayaa shaqaalaha iyo wasiirada Soomaaliyeed ee jooga magaalada Addis Ababa ee kula jira wada hadalka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka si ay u soo dhameystiraan qandaraaskii ugu dambeeyay oo aan la gelaynay hay'adda lacagta adduunka kadib inta aan la bilaabin tallaabadii ugu horeysay ee deyn cafiska oo aad hadda u soo dhawaatay. waxaan u hambaleynayaa shaqaalaha kulligood ka shaqeeya isxilqaan ee mar dhow soo afjari doona safkii ugu horeeyay dhismaha tiyaatarka, maktabadda, madxafka iyo taalooyinka. waxaan idin leeyahay idinkana hambaliyo. waxaan u hambaleynayaa qof walbo shaqaale ah oo qayb ka ah dib u dhiska dalka. maadaama marka halkan aan maanta isugu nimid, waxaan rabaa inaan laba eray ka iraahdo xaggeen joognaa. 2 sano ka hor wuxuu ahaa walwalkiinu qof waliba mushaarkiisa ma qaadan doona. maanta halkan waxaad ka caddayseen laga soo bilaabo Janaayo 2017 ilaa bishii hadda dhamaatay oo maanta bishu ay ku tahay in dhamaadka bisha cid waliba mushaarkeeda uu qaatay oo shaqaale. maadaama aan ka gudubnay safka isaga ah, marka muhiimaddu maxay tahay marka inaan sameeyno? waayo shaqadeennu ma aha in mushaar la bixiyo. shaqadeennu waa dalka in dib loo dhiso. waa in dhaqaalaha dalka dib u habeyn lagu sameeyaa, dalka deynta laga cafiyaa, musuqmaasuqa lala dagaalamaa, 100,000 kun oo shaqo la abuuraa. waa in ganacsatada Soomaaliyeed gacan la siiyaa si ay u helaan fursado ay dhaqaalahooda ku kobciyaan. waa in ciidamada dib u habeyn lagu sameeyaa oo la tiriyaa, la tayeeyaa, la toosiyaa. qof walba oo askari ah oo furunta taagan ama shaqo dawladeed u taaganna sida idinkoo kale isaguna uu qaato mushaarkiisa bisha markay dhamaato iyadoona cidlo loo soo marsiinay. waxay tahay shaqaale iyo ciidanba waxaa qandaraas kula jirta dawladda Soomaaliyeed. ma aha mushaarkaada in cid lagu soo marsiiyo, waa in bangigaada lagugu soo ridaa bisha markay dhamaato. waa in laga shaqeeyaa inaan dib u habeyn ku samayno ciidamadeena, la tayeeyaa, loo dhisaa xerooyin ay leeyihiin maamul dhab ah oo isla xisaabtan ku salaysan, iyaguna leh xuquuqda ugu mudan dalka. laakiin waa inay ahaataa dib u habeynta lagu sameeyay shaqaalaha rayidka. sidaas ayaa iyagana loogu sameynayaa si aan u ogaano tirada iyo tayada aan leenahay, inta naga maqanna aan ku soo darsanno xuquuqdooda rasmi ahna ay u helaan. waxaan dib u habeyn ku wadnaa hay'adaha siyaasadda dalka. cadaalad noocee ah ayuu dalku yeelanayaa? doorasho noocee ah ayuu dalku ka gelayaa si shacabka Soomaaliyeed iyagu ay u codeeyaan? awood qaybsi noocee ah ayuu dalku yeelanayaa? waa su'aalo waaweyn oo u baahan in lagu qoro dastuurka oo shaqadeedu ay socoto oo ay muhiim tahay in lagala hadlo cid walba, siyaasi, xildhibaan, wasiir, madax dawlad goboleed. laakiin muhiimaddu ay tahay kulligeen inaan soo qadimno shuruudda qarannimo oo ah waa inaan danta qaranka marka hore ka hormarinaa dan walba oo aan leenahay. dawladdu waxaa laga rabaa inay adeeg bixiso. si ay adeeg dawladdu u bixiso waa in dhaqaalaheedu u dhammaystiran yahay, oo amnigeedu u dhammaystiran yahay, oo siyaasadeedu u dhammaystiran tahay. si carruurteenna ay waxbarasho u helaan, si carruurteenna ay caafimaad u helaan, si dhallinyaradeena jaamacadaha ka soo baxay ay shaqo u helaan. shaqo si loo helo marka waa inay jiraan hay'ado shaqeeya oo dhaqaale keena, amni ka shaqeeya, siyaasad ku salaysan qarniga 21aad
كشقية وأنا هين قرني سجالي تبناد أما قرني لواتنا وأنا المشار مقعد أنك بدلنا مجال النوعية هاي نقول إنسان مجال مقدسة طبعا كسنة وصاصة مجال الحيس مثل مجال سيران الدر في السين مجال التاريخات مثل مجال الدلدلة مجال المركز سيدي بيهان إنسان مجال البرا وسيدي هان إنسان جوهر سيدي هان إنسان بلعت سيدي هان إنسان يميل والبوس وماليه وإن التاريخ وديارنا ذلك الصومالي وأنا كفكرنا محاكيني إن ذلك أبارو كدعوة معانو دقالي سويني روبك إلهي نسيو محاك كل عيبي حرانا دي ما قصنا نباهنا هينا نديبو قدسنا إلهي دقالي أيان حوق سارينا طبان كسنة أما الله كسنة صوص على سي أنا الدنيا دي أولا ترتمو الدنيا دي أنا أولا ترتمو وحا أقوين أولا ترتمو waxay tahay aqoonta dadkeenu ay leeyihiin waxbarasho noocee ah ayaan rabnaa inaan dalka u sameeyo si aan dunida ula tartanno waa inaan leenahay bulsho caafimaad qabta siyaasad caafimaad oo noocee ah ayaan yeelanaynaa waxaan rabaa marka shaqaalena idin sheego siyaasadii Soomaaliyeed ee ku sanaysneed qarnigii 19aad ama 20aad ama aqoon la'aanta ama xirfad la'aanta waa la soo dhaafay dalku waa inuu galaa isbedel aqooneed oo ku salaysan aqoon ka madax banaan qabyaalad iyo musuqmaasuq dan jeclaysi waxa muhiim ah marka sidaad u aragteen inaad xuquuqdiina qaadatiin waxa xuquuqdiina idin siiya kaliya waxaan sugnay amaanadii naloo dhiibay dalku waxa uu baahan yahay in lagu wado طريق نوري دايا ماليه عن كهذا وعلى الربا مركا إذن كلفتينه إن أتفكر كيها حوجة كل هذا مسكح شيء وارون عدة هل كان كثري شغا شرف له وارون عدة هل كان كثري شغا يستعرق وارون عدة هل كان كثري شحاذا اسكما فيلنا أما واقعا waxaan leenahay shaqaaluhu ha noolaadeen Soomaaliya ha noolaato